دوني ورميا مدحوينه aragtaan إماراتك بسم الله الرحمن الرحيم waxaan aniga oo ku hadlaya magaca gabdhaha gobolka bari gaar ahaan Boosaaso waxaan taageeraynaa waanu isugu nimi dhamaantaya hooyooyin gabdho dhammaan caruurtayadeena daba joogta waxaanu taageero u nahay baaqi ay soo saareen uqaasha iyo odayaasha gobolka bari waxa sababay inaanu taageero haddii aynu nahay dawlad goboleedka Puntland waxa dhidibada inoo aasay odayaal ilaa iyo xilligaasna soo gaarsiiyay alxamdulillah waxaan moodaa in dadkii xukuumadda inoo hayay inay ku tumteen odayaashii soo tigibada u soo aasay Puntland inay maqli waayeen inay waxan jirin ka soo qaadeen sidaas ayaa noo muuqatay taas waa mid tan labaad mar labaad iyo mar saddexaad waxaanu taageeraynaa odayaasha baaqa soo saaray taageeraan u nahay fikradda ay qabaan baanu qabnaa waa dhibaataysanahay waa liidanaa waxaanu dareemaynaa dacdarro aad iyo aad u badan waxaanu dareemaynaa mid hooyooyinku qabaan hadday umulayso haddii dhibaato kale hayso dacdarro aad u liidata ayaanu qabnaa ilmihii baa qaba annagii baa qabna ka binaadan ahaan wax alla iyo waxaanu ku qabna xukuumadayada ma jirto haddana waxaana loo ku soo dhigtay ciidayadii awalba aanay wax naga tarayn xukuumadayadu ayaa iyadiina loo ku yimaano ku noolayn oo gabal loo gatay mana ogolin mana yeelayno dhammaan intaanu la egnahana waxaanu la isku feker haddii aan qof naga harayn iyo haddaanu wada noolaanayno ma ogolin caawa ma ogolin oo berri ma ogolin oo saa dambe ma ogolin sidaas waxaanu u sheegaynaa caalamkaanu u sheegaynaa dawladda federaalka baanu u sheegaynaa wax alla iyo wixii dhagahoodu wax maqalaan baanu u sheegaynaa ma ogolin dhulkayaga in gabal loo gato waanu ku noolahay waanu ka xamaalanaa in annaga dibadda naloo tuuro oo gabal loo gato ma aanu ogolin waa ka soo horjeednaa waana ka soo horjeednaa sidaas insha Allah dawladayada annagu dawladayada ma nacsanin waa dawladii aanu dhisanay oo annagu aanu tigimada u taagnay waa dawladaanu soo dhaweynay oo sida fiican xamaasadda ku dhisanay laakiin waxay nagu noqotay lamood noqon saweyday lamood noqon saweyday bay nagu noqotay ma aha dawladii aanu si aanu ka rabnay ma aha iska daa waxaanu ka helo taageero bulsho noocay u taytoona kuma haysano على الحال waxay noogu soo dhigatay ciidayadii aanu ku noolayn ayay noogu soo dhigatay iska daa wax kale aanu ka helo Boosaaso waad ogtihiin iska daa habeenkii wax maantii suuqa waxaad arkaysaa nin ama naag bacsidata oo waxay u sitaan naag umushay oo loo haysto ilma lagu qalay ama umushay oo lacagti lagu umuliyo loo haysto baad arkaysaa oo awood waayay bacna la wareegaya oo waxay leeyihiin noogu rida islaanti bana ka haystay dhibaatooyinka noocaas oo miran ayaa na haysta waxaanu codsanaynaa dawladda federaalka inay naga soo gaarto annagu ka bari ahaan annagu waxaanu nahay federaal caawanu federaal nahay bari baanu federaal nahay waxaanuna diyaar u nahay israaca iyo wadajirka Soomaalinimo waa ka baxaya assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh meel kasta ku nooshahay gaar ahaan waxaan salaamayaa madaxweynaha dawladda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mudane madaxweyne waxaan ku leenahay adaa noo dhaartay oo madaxweynaha Soomaaliyeed waxaan ku dulmanahay hoostaada mudane madaxweyne waxaan nahay maamul goboleed dulman gaar ahaan waxaan nahay gobolka bari dad dulman dekedayadii waa la gatay ayraboorkayga waa la gatay macjaradayadii waa loo soo dhigtay cusbitaal ma haysano dhaqaadiir ma haysano nagu filan qofku hadduu xanuunsado maanta waxa loo qadaa gobollo kale oo aan ahayn Puntland ama ka tirsan Soomaaliya aan ahayn annagoo cashuur aan noo dhaafin oo rula noo dhaafin oo deked la noo dhaafin oo meel noo dhaafin jirin
waxaan u maraynayaa Saciid Cabdullaahi Dani baaq baan u dirayaa Cabdiwali Maxamed Cali Gaas 4 sano kadib 3 sano kadib baa laga cawday laakiin adiga maanta adigoo jooga 5 bilood baa laga cawday sida waxa dhan mudane madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani anagu shalaadaan ku doorana codkii xildhibaanada iyaduna aday ku siiyeen hoostaadan ku dulmanahay hadaan nahay gobolka bari anagoo baaqi odayaashayadu soo saaray isku ra'yi rag iyo dumar caruur oday iroole kulli isku raybaana hadii aan hoos noo fiirin dhibaatada ka jira gobolka bari macjarna nooma dhaafin deked la nooma dhaafin ayraboorna nooma dhaafin barabaleenka inta leeg waxa sababay gobolka bari agta madax looga hayo oo haddana ah hooyadii Soomaaliyeed oo Soomaaliya oo dhan meeshay ku baxsatay waa Boosaaso haddana rafaadka iyo barabaleenka ka jira iyo dhibaatada aan tabanayna caawa ilmahayagu isagoo ah annagu waxana hooyooyinkii Puntland wiilashayadu waa ayii Puntland wiilkay wuxuu noqon karaa wasiir wuxuu noqon karaa madaxweyne iskool ku filan ma haysto hadduu maanta iskoolka maalin lacagta soo dibdhacdo ay gidaar baa la taaga wala ila wariya halka istaag qorax baa la taaga oo 12 saac lagu xukumaa maxaa keenay dawlad baa cashuur baa naga qaada ari la nooma dhaafo kartoon la nooma dhaafo waxaad isweydiisaa mudane Saciid Cabdullaahi Dani bal adiguba ka soo qaad reerkaaga inay nolol ku noolaadaan baa jeceshahay dadka reer Puntland nolosha inay ku noolaadaan ma ku qanacsan tahay gobolka bari gaar ahaan inaan dulmanaano 20 sano baan dulmanay hadaan nahay reer Boosaaso Cabdullaahi Yuusuf aan nooga horeeyo dulmi oo xabaal ku jira maanta maxaa dulmina galiyay anagu hadaan reer bari waa dulmanahay ragga iyaga baa la xirxirayaa afka hadlinayna iyo ragga cagafka laga saaraya maxaa nagu kalifay dhibaatada inta leeg maxaa galiyay habeen iyo maalin waxa leeyahay ragga ninki reer bari oo hadla juuq dhaasu ka cag laga saaraya annagu waxaan leenahay meel aan ku gabanno meel aan tagno hadii fooda la bilaabnayna fooda laga badiyo shalay waa ku qaadsan maanta waa ku qaadsan Saciid Cabdullaahi Dani waxaan leeyahay mudane madaxweyne hoos u eeg dadka iyo dalka aad u dhalatay shalay waxaad lahayd Boosaaso waa hooyo maanta waxaad leedahay Boosaaso waa futo mudane madaxweyne sida suuban الله سبحانه وتعالى إنه قلادي إن يسوقنا ما نهلا كان وحنا نقول سلام يا سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين نوحنا يسوقنا باقة وضياش وجديين إن أنا أيدني إن أنا نكون رأسنا هاي وضياش اللي حرمانته يكوي شيء كوريي كله إنسي شرط الله أنا اللي قصود دايا هذا أنا هاي هايوينك قبل كباري بوساس waxaan u sheegaynaa madaxweynaha Dani madaxweyne inaad dekedayada iyo waxayga xaraashato annaguna aan raali ka noqono madaxweyne isku ma heshid waxa jidee mahmaha hayd aan ku cuno aan kugu cilbixay hayga caban waana aan ku raro aan kugu rahdaqay hayna kala reebi mahmahaas waxa weeye Dani taasu maanta ujeedkiisu weeye وما دلقادانينو وما دلقادانمينو waxa weeye waxaanu ka xignaa inaanu ka dhidhino hadaanu hay maamooyinka gobolka bari assalaamu alaykum warahmatullahi mudane xafladda caleema saarka ah oo aad tagtay lagulama qabo reer Puntland kulama qabaan nabadoonaana kula qabin isimaana kula qabin marwooyin baana kula qabin mudanayaal baana kula qabin Puntland waxaad galisay god baad galisay Puntland tayadii iyo tiigsi hooyadii federaalka anagana la dhahaa haddana hooyadii federaalka ee Puntland waxaad galisay god dheer baad galisay dhowrkii bilood aad haysatay mudane mid kaleeto markii reer Puntland noqotana reer Puntland kala tafaaruq baad ku samaysay gobolka bari waliba gobolka bari waxa weeyaan ishi reer Puntland way gobolka bari khaasatan magaalada Boosaaso magaalada Boosaaso infrastructure-kii iyo kaabayaasha dhaqaalaha dekadii airport-kii kulli adigoo aan dadka kala tashan reer Puntland ismadii aan kala tashan ayaad iska u iibsatay waxaanu kugu raacsanahay maaha waxaanu ka soo horjeedno weeye amniga kama hadashid waad ka soo gashaa waadna iska baxdaa wax anagu aanu qaadan karna maahan shacab reer Puntland waxay leeyihiin waliba gobolka bari waxay leeyihiin shacab xalaal ah oo arinta ka dhidhiyay bay leeyihiin oo kaaga jawaab celinaya waxaanu kugu dul qaadanayna maaha waxaanu kugu taageersanahay maaha waanu ka soo horjeednaa waxa saad u dhaqmaysid ya waana ka baxaya assalaamu calaykum bismillaah meeshan waa la hadlay horeyna maxay ahayd waxa u soo maxay ahayd
waxa weeye odayaashayadii maxay ahayd ayaan raacsanahay ka muujiyay maxay ahayd taageerada baan taageersanahay horay maxay ahayd uga hadlay dekada iyo maxay ahayd waxyaalaha ay ku dulman tahay Puntland bismillaahir rahmaanir rahiim hadda anagu waxaan nahay haweenka gobolka bari waxaanuna isugu nimi oo meeshan ka midaysanahay in maxay ahayd aan taageeradii hore oo odayaashayada iyo nabadoonnada ay ka soo jeediyeen gobolka bari inaan anagana ku taageerno oo ku ayidno maxay ahayd waxaana maxay ahayd u sheegaya baaqna u diraya ninkii maxay ahayd la xiray oo maxay ahayd nabadoonka ahaa oo la xiray in si degdeg loo soo daayo waxa lagu xirna inay tahay khalad si degdegna in loo sii daayo maxay ahayd waana isku raacsanahay in dekada iyada la gatay iyo aeroboortka iyagaba maxay ahayd imaaraadka si degdeg looga kiciyo haddii aan si degdeg looga kicin aeroboortka iyaga iyo dekada iyada la gatay si degdeg haddaan looga kicin maxay ahayd imaaraadka maxay ahayd looma sii dul qaadan doono aeroboortka la gatay oo la saxiixay horay baa waxaan looga gatay dekadii boosaasood oo madaxweynihii horeeto nooga gatay annagoo isleenahay maxay ahayd madaxweyne cusub oo wanaagsan baa imaanaya oo imaaraadka idinka kicinaya ayaa waxaa la raacsiiyey aeroboortka haddana in gadaal loo sii saxiixo gadaal loo sii gato maxsharadii haddana in maxay ahayd imaaraad loo saxiixo korontadii in imaaraad lagu wareejiyo waddankaba imaaraad baa xukumaya in la dhaho haddii imaaraad waddanka lagu wareejiyo annagu waa naqaan yuhuud baa dabada ku haya imaaraad waa naqaanaa yuhuud baa dabada ku haya xiritaan iyo waxa weeye caburin iyo caqabad buu dabada ku haya waxa weeye imaaraad maxay aeroboorkuna haddii lagu wareejiyo wuxuu dabada ku hayaa in la duqeeyo oo maxay ahayd ay duqeyso xuutiyiintu duqeyso isagu markuu saldhig ka dhigto xuutiyiintu duqeyso waddankayaga u doonimayno in xuutiyiin duqeyso waddankayaga u doonimayno imaaraad inuu qabsado waddankayaga u doonimayno yuhuud inay fangarayso waddankayaga u doonimayno waana ka dhiidhiyaynaa waxyaalaha xunxun oo dawladda ku kacayso annaga waxa weeye lacagna ma doonayno lacagna qaadan mayno mashruucna ma rabno waxay noo qabatana ma rabno annagaa waxqabad isugu filan annagaa ganacsato ah waddankayaga annaga ilaahayna siiyey muwaadiniin baanu nahay annagaa ka shaqaysanayna dekadayada annagaa dhisanayna haddii wax ka xun yahay annagaa dhisanayna haddii kaletana wax noo dhisan helaynaayo aan nagu adoonsano naga qabsano maxay ahayd baadiyaar noo ah annaga waxaan nahay muwaadiniin haddaanu nahay haweenka gobolka bari waxaanu nahay muwaadiniin Soomaaliyeed oo waddanka degan oo ku dhashay oo ku dhaqmay waxaanuna diyaar u nahay wax kasta oo gobolkayga dhibaato soo gaara inaan ka dhiidino waxa weeye haddana waxaan baaq u dirayaa ninka la dhaho Siciidani waxa weeye Siciidani anaga waddankayga anagoo taagtaagan imaaraad anaga ka iibsan mayso habeenka xalay ahay tagay way taas ina imaaraad ka iibsato anagoo taag waddankayga imaaraad ka iibsan maysid dadka shan baa ilaahay ka dhigay بعدي waxaanu nahay haweenkii gobolka bari beelihii ka soo jeeday gobolka bari haweenkiisii baanu nahay waxa weeye meel madaxa ka sareyso la taabtaana ma jirto waxaanu raacsanahay ragga iyaga baaqooda waxaanu raacsanahay maaragtay shirarka ay qabteen baaqyada ay soo daayeen ayaanu aysanoo raacsanahay meeshan waxa la yiraahdaa bari baa la yiraahdaa waa bari barwaaqo waa meesha la isugu yimi iska daa Puntland dadka u dhashay Soomaali oo dhan baa ku nool siiba meesha la yiraahdo Boosaaso waa meel irmaan oo Ilaahay nimcaan dhigay bad baatal aeroboor bayaal kalluun baa laga guraa fooxiyo xijib ay leedahay nimcooyin Ilaahay dhigo ku maneystay meelaha gaara nimcooyinkaas ay leedahay reer bari dadka ma faquuqin ma oran mudug baa laga yimi ma oran ugaal baa laga yimi ma oran hadduu alfsool baa laga yimi waa la soo wada dhaweeyay dadkii waxa way waan lagu soo tabakooray waxay ahayd muhiimaddu madaxweynihii yimaada inuu hagaajiyo oo dhiso waayo hooyada Puntland laakiin madaxweynihii qabsadaaba wuxuu keenay inuu iyada lu gooyo oo gato waayo waxa jira Boosaaso kaliya male airport gaalkaan airport lama gado garowaale lama gado qardhaale lama gado maxaa kalifay in Boosaaso dekedeeda la gaday in macdanta ku taal buuraha ku jira laga soo guro in kalluunkeeda bilaash loo bixiyo loo siiyo maaragtay maraakiib jiriifa in maaragtay waxba aan looga meel dayan nacam waxa laga soo qaaday meel aan cid lahayn oo lagu dhaxayo inta lagu dhaxayo oo liimaanta nimcada laga gurto laga tagayo haddaba taas waxa way waa la iskala soo baxay wixii hore loo sameeyay dib loo qaadan maayo loona dul qaadan maayo dhibaatada uu wado dani hadda bilaabay loo dul qaadan maayo bari rabbi iyo ragba way leedahay waa ka la iska celinayaa dulmiga aad wadana waxa way waa la arkaa waana ka la iska celinaya
midnimadaa la rabay tolnimadaa la rabay wanaagga iyo sharaftaa la rabay nabaddaa la rabay nabad wax qaaliya wayaan la heli karin haddaadse nabadii diiday oo dee waxaa ay tahay nacamta kaa xoog weynaya ha hadlin deni uu lagaa yeeli maayo anuu mudane ku dhigi mayo waan lagaa yeelan waa kaa la iska celiniya waxaan ku darayaa tix yaro buraanbura baan ku darayaa bismillahi raxmaani raxiim buntland baqaanjeedii nayaan bilaabaya awar baqaanjeedii nayaan bilaabaya buntland waa meel ballaaran oo barwaaqo taal buntland waa meel ballaaran oo barwaaqo taal bahdaybaa wada degto baylahuma ogoli bahdaybaa wada degta oo baylahuma ogoli maxaa bari boobka iyo biica loogu qoray war maxaa bari boobka iyo biica loogu qoray bilkii joogaba bar muxuu iibsadaa bilkii joogaba bar muxuu iibsadaa war beelaha dega miyaanba wirweyn lahay anagu deni dooni maynoo dacwaan ka nahay anagu deni dooni maynoo dacwaan ka nahay dulmiga u wadana bari wow dareen qabtaa dulmiga u wadana bari wow dareen qabtaa dadkeediiba u kacayo waysku duubanahay dadkeediiba u kacayo waysku duubanahay war doorashiyo waxaa la gelayaa codayn degdega oo doorashiyo waxaa la gelayaa codayn degdega oo duubka waxa loogu xirayaa nin daacadu war duubka waxa loogu xirayaa nin daacadu dulmaanay boosaasa wiil daqadaa u fura dulmaanay boosaasa wiil daqadaa u fura waroo dib ugu celiya khayraadka laga daldalo waroo dib ugu celiya khayraadka laga daldalo deniyow ka dareeri intaan dab lagugu shido deniyow ka dareeri intaan dab lagugu shido hadda wax hadaloo haray ma jiraan say ila tahay waayo waxaa la yidhi anaa haray looma hadlo waxaa intaa hadashay oo gabdhaha baanu isku mowqifnahay warka inta ay qabaan baan qabaa waxaan keliya ku darayaa deni madaxweynaheenni buu ahaa boosaaso markuu iska soo tegay waataan qoraxda u taagnayn oo calamada u ruxaynay oo soo dhawaynaynay wuxuuna kula ballamayna waad garanaysaan wuxuu yidhi boosaaso waa la dulmay hooyay ahayd waa la dayacay aaway raggii aaway hebel kale aaway raggii boosaaso boosaasaa la dulmay waa kaa waxaynu moodaynay nin inoo hagarbaxaya oo ninkii boosaaso ka maqnaa oo inoo soo degay oo innaga inala ahaa markii aynu soo dhawaynaynay hadda waa u jeednaa waxa uu noqday deni waxa weeye boosaaso intii la xaraajtay boosaaso meel mar dhahay isagu maxjar buu ku daray oo wuxuu ku daray deked oo wuxuu ku daray aeroboor oo wuxuu ku daray maxay tooyeen meel korontadii meel uu dhaafay ma jirto waxaa dhacday in laamiga dayactir yar lagu sameeyey niman isxilqaamayaal ah oo waxa way u qaybshaday dowladda federaalka ah oo yiri laamigan burbursan intay arkeen dayiciisa yiri damcay inay wax ka qabtaan deni markii uu arkay deni boosaaso shaqo laga hayo waad garanaysaan arrimaha uu ku kacay nimankii hawsha haya howlwadeennada ahaa oo culimadu ku jirtay oo odayaasha ahaa mas-uuliyiinta ahaa jeel buu ku guray waa la wada ogyahay marka deni wuxuu inoo qabto daaye wixii boosaaso laga qabto inagu aynu qabsano lacagta laamiga lagu sameynaya dadweynaha laga aruuriyey waxa way dadweynihii aruursaday waxay u qayshadeen markay ka yaraatay dowladda federaalka hawsha ka qabsatana waad garanaysaan marka deni mid baanu leenahay farmaajona mid baan leenahay farmaajo waxaan leenahay mudane madaxweyne wadanka adaa mas-uulka ah adaa madaxweyne noo ah
adaa dowladda Soomaaliya maxay tahay mas'uulkeedii ah dowladda Soomaaliya aanu ka tirsannahay waxaan doonaynaa inaad wax noo qabato si degdeg ah Puntland siiba gobolka bari haddaan nahay gobolka bari ayaanu joognaa Boosaaso waxa weeye dekedeedii la gatay oo laamiga meeshii deked meel walba la gatay oo airportkii la gatay dadkaas waxaanu nahay dumarkii gobolka bari oo dulmanayaal ah oo wax badan dulmanaa oo 22 sano ay Puntland jirtay dulmanaa oo hadda waxa weeye meel walba waa la gadanayay waa joognay laakiin maxjarkii intii yaraydoo waxarii la xirxiranay islaamu shan orgi bay xirtaan islaamaha agoon baa lagu koriyaa waxa waaye wax yar waxa weeye 10 bay soo kaxaystaan 5 bay soo kaxaystaan nin walba waxbuu wataa 10kii orgi buu soo dhigtay wuxuu yiri 10ka orgi gaari baan soo gadan marka naga soo gaar baanu leenahay farmaajo arrintaasaan haysata haddaanu nahay haweenkii gobolka bari Siciidani waxaan leenahay mudane madaxweyne Siciidani madaxweynaha iyagii baa tahay waa lagu doortay waa ku soo dhaweynay arrimaha aad ku kacaysana nama qabtaan arrimaha aad ku kacaysana nama qabtaan naga daa wax ka bedel sida hayeelin mas'uuliyiinta gobolka bari la tasho wax weydii waxa weeye taladaada waa rabaan way ku doonayaan laakiin adiga diiday waxa weeye taladaada waa in la helaa waxa weeye taladaada in la helo mas'uuliyiinta la shirto odayaasha mas'uuliyiinta oo waxa weeye nabadoonada aad xirxirayso xariga lagu guray waa in la soo daayaa Muuse Cali Jaamac iyo nabadoonka kale oo la xiray waa in la soo daayaa si degdeg oo shuruud la'aan ah haddii kale anagu shacab baanu nahay haween baanu nahay gobolka bari baan joognaa way isku duubanahay maataanu nahay madaxweynaha iyagii baa tahay haddaad wax noo qabanayn waxba aadna yeeshay waa kacaynaa waxa weeye mudaharaadna ma cisho waxa weeye xabadna ma celiso anaga askarina ma cabiidinayso namana celin karto waxa weeye askarta anaga dhalay wiilasheenii waaye waxaan ku leenahay mudane madaxweyne arrinta wax ka bedel wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan mahad u celinaynaa ilaahay weyn oo naawurtay oo meesha isugu kaaya keenay waan mahad u celinaynaa waxa weeye waa la hadlay hadalna ma harin waxa weeye anagu waxaanu ayeedsanahay oo taageeraynaa odayaashayada baaqa soo jeediyay baanu ku raacsanahay oo gobolka bari baanu anagu taageersannahay kamana harno caruurtii baanu nahay oo haweenkii baanu nahay oo dulmanayaal baanu nahay oo waa kacnay reer bari maanta waa kacay sidoo u kaca ka dhaba madaxweyne anagu mudane ku oran mayna laakiin daniyo waa kacnay sidaan u kacna weeye saan u soo noqonana lagama yaabo inaan soo noqono baad wax qabanayso adigu odayaashayadii la xirxiray waxa weeye nabadoonada la xirxiray oo waxa way xaq ku taagnaa oo xaq darrada lagu xirxiray degdeg hadaan loo soo deyn degdeg amar laan loo soo deyn tan ka dhacda waa la arki doona annaga meelna nama celiso dad la bajiyana ma reer barina waa kacay waana isku duwan yahay shood ma jiro la isna xaq dhowrka alla laga rabay laga waa daniyow tixyaro buraanburana waa ku daraaya إليه هذن كإليه أنجري ركبانتي هذن كإليه أنجري ركبانتي وهول هذي فشذا يهوى ذاك بعي وهول هذي فشذا يهوى ذاك بعي dalkiinu cadow hareereeyay waa hubaal dalkiinu cadow hareereeyay waa hubaal halyeeyada bariyow seeba u kala dhaan halyeeyada bariyow seeba u kala dhin maxaa idin habaaqiyo idinka dhigay habuud maxaa idin habaaqiyo idinka dhigay habuud inaga hidihigeenu waa hawleena maqan dhammaan halkan waxaanu isugu nimi hooyooyinka bari waxaanu doonaynaa oo ka hadlaynaa danahayaga faragelinta lagu hayo
gobolka bari gaar ahaan madaxweynahayaga loo doortay Siciid Cabdulaahi Dini waxa weeye maantii uu soo degay dekada Boosaaso ka khudbadaynayay sidii uu khudbadaynayay oo loogu soo dhaweeyay ma noqon odayaashii bari uu ka magacyadooda uu ka sanqarinayay maantana inuu yiraahdo dhalinyaradoodii iyo dadkoodii iyo xaasaskoodii baan tunka kaga tumanaya ma aha Siciid ma aha inuu tiraahdo xaasaskii iyo caruurtii baan dusha kaga tumanaya maanta midda labaad waxa noo xigta inuu ku darsaday buurihii caruurta yararka ay ka xamaalan jireen oo xijiyada ay ka guran jireen ma faham oo yiraahdo argagixisa joogta inuu yiraahdo maanta de waa ummadda Siciid inuu dhaho ma garat ma nihinana waxaad nagu sheegayso haddii aadan ka soo noqon hawshaasna de Siciid waxaad la kulmi doonto waad arkaysaa waxaad la kulmayso waad arkaysaa waxa weeye meesha madaxweynaha noo tahay waa ka dameynayna ilaa iyo intii madaxtooyadii baan ku galbinaynay wali alaanka aanu ku wadnaa de haddii aad xaaladda ka noqon weydo xaalad baa soo doldulaysa haddii aad ka noqon weydo odayaashana aad degdeg u soo dayn weydo kuwa aad u dhaaranaysana aad caqabada ka saari weydo de Siciida waxba isuma hayno waxaynu isu haynaa ma jirto assalaamu calaykum waraxmatullaahi bismillaahi raxmaani raxiim ilaahay baa mahad leh mahad ilaah baan u naqaynaa meesha ka isugu keenay anagu waxaan nahay hooyooyinkii gobolka bari hooyooyinkii Puntland qaas ahaan gobolka bari waxaana keenay meeshaana na soo kiciyay waxa weeye waxgaradka cuqeeshayadii nabadoonnadayadii caaqiliintayadii caburin baa lagu hayaa dalkayaga waa la iibsaday dadkii baa xiga dalkii la gaday dalkii baa xiga jiriifa ayaa la dhahaa anigu madaxweyne ma arko madaxweynaha anigu ma arkay jiriifa ayaan arkaa jiriifaaye wadanka jiriifka waxa weeye badii dhamaatay bari badii gaday buuri gaday ayrabeerki gaday hadda wuxuu soo dhigay waxari naga agoon leeyahay iyo naga danyarta iyo habraan masaakiinta xarunta yararka iyo biilka maxaan uga doonana jireen ama kuwa lagu furay oo nimankoodii buushashka ku jiraanin ama agoonta caruurtoodii meesha bariska waratanayeen buu soo dhigay halka naagaana laga sheegay anigu madaxweyne meeshaan kuma arko waxa weeye federaalka maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo waxaan leeyahay anagu federaal baan nahay dad Soomaaliya nahay dadka mas'uuliyadda ka tahay baan nahay si degdeg loo soo gaar anagu waxa weeye dalkayaga waa haystaa dadka ayaa lagu darsan na soo gaar oo ninkii hadla bal xirayo waxa weeye raali kama yihiin anagu askariga anaga dhalay hooyo anaga ah karaardaga anaga dhalay waxa weeye hooyooyinkii baan nahay waxa weeye mas'uuliyiintii waxaan nahay Puntland kuwa dhidibada waasay oo waxa weeye soo asaasay baan nahay xigalin ma haysano laamiga waa burbursan yahay laamiga ma arkay soo yahay tamaan walba bil walba gaar ma la arkay waxa weeye laamiga waa baaba waa burbur guryaha galbaabka bilaa maraan lagu garaacayo oo kala baxaya qashinka xataa guryaha loo yaalo ma qaado leedan xilli baa u diraya oo Puntland matala oo madaxweynaha waxa weeye taliyaasha waxa waajibka la nasaar kama soo bixin kama soo bixin rabbi falkiisa ay loo dhaxay mas'uuliyiin meehidin mas'uuliyadu waa ku cayaadeen mas'uuliyadu ay nasaar waa ku ciyaartay waxa weeye dad baa soo doortay waa ku ciyaartay mas'uuliyiintii waxa weeye rabbi falkiisa ay loo dhaxay dadku wareer ma been baa sheegay hadaan hay hadda intaan hadda ka hadlayno in ka badan baa ku ilaahay hadduu idmo waxa weeye in badan baa xishoonay midba mid buu loo dhiibay waraaba loo dhiibay horba buu loo dhiibay ma looyin dabadhiilifka wadanka gadanaya macdanta la baxaya dahabka la baxaya buuraha qodanaya diyaaradda raranaya dahabka la baxaya badda jiriifaya imaaraadka badda jiriifaya dahabka qodaya daniga gatay
daniga gatay daniga gatay dabadhilifka doolar qaate dabadhilifka dhiigyacabka dooni mayno waxaan nahay federaalka farmaajo na soo gaar rafinaguma jidhee na soo gaar khayrow na soo gaar farmaajow na soo gaar annagu haddaanu nahay haweenka reer puntland waxaan taageersanahay federaalka federaal baana saacaddaa laga bilaabo waxaan nahay federaal oo dhaco mucaaradku ha dhaco waxaan u sheegayaa khayre iyo farmaajo baaqa odayaasha waa inaa ka soo jawaabtaan odayaasha dhowr jeer bay baaq direen baaqa waa inaa ka soo jawaabtaan odayaasha gobolka bari oo federaalka raacsan farmaajo iyo khayrow noo soo jawaaba wax badan baanu sugaynaa farmaajo wadaanu ku sugaynaa iyo khayrow waxaan hadda ku sugnahay magaalada Boosaaso la kulmay maamooyin badan oo markaa ka cabanaya maamul goboleedka Puntland ee dhawaan la doortay oo hogaamiyaha u yahay Saciid Cabdulaahi Dani maamooyinkan ayaa waxay markaa ayadayaan ama soo xoojinayaan baaqi asbuuc ka hor ka soo baxay odayaasha iyo waxgaradka gobolka Bari maamooyinkan waa maamooyin Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Boosaaso waxay matalayaan shacabka reer Bari waxay ka dhidhinayaan khaladka ama khilaafka loo geystay dekada magaalada Boosaaso airportka magaalada Boosaaso iyo maxjarka iyo meelo badan oo marka lagu wareejin doono imaaraadka iyaga marka ka soo horjeeda say noo sheegeen taaso waxa khadka ku jira dad kale oo iyaguna ka soo hadlaya meelo fog oo kamid ah gobolka Bari marka waxa kamid ah qofkan oo ku sugan oo ku jira khadka isla markaana ku sugan meel aan magaalada Boosaaso ahayn dadkaas oo dhan waxay ka cabanayaan cunqabateynta ama caburinta shacabka reer Puntland loo geysanayo barakaatu halkan barnaamijkan ay isku yeedeen beelaha gabdhaha Bari ayaan soo dhaweynaya waxaan ka geysanayaa intii karaankay ah haye waxa aan baaq u dirayaa dawladda Puntland madaxweyne ku-xigeenka iyo xildhibaanada aad iyo aad baa waxaan baaq ugu dirayaa Puntland horta marka u horeeya number 1 nabadgelyada Puntland in salka loo dhigo Puntland burbur uma baahna Puntland uma baahna inta faraaruq iyo dhibaato hor leh hadda la oogo annagu waxaan nahay asaasayaashii Puntland midbaha u aasay u halgamay baa u nahay waxaanu tabaneynaa in sargooniya lagu mudaayo ama se hantidii ay lahaayeen laga mariyay meel aan ku habboonayn hantiyo badan baa nagaga maqan Puntland asaaskeeda haddana ay ku munaafacaadsato hantida waxa weeye ma aanan garaway inaan sheegano laakiin dalka iyo dadku waxay u baahan yihiin ayaan u diyaar garownay haddana waxaan aragnaa inaan waxba nala ka ogeyn okay no so come waa hadalka ma dhamaystaan iyo ilaanu laga ereebaan dhamayso seeway hadda Puntland faragelinta waxaan madaxweynaha Puntland Saciid Dani waa nin u dhashay gobolka Bari waxaan leenahay madaxweyne waxa aanu ka rabnaa oo ka doonaynaa burburka Puntland aad ugu horseedin in aad ka waantoodo waxyaalaha faragelinta oo beelaha kala qoqobkooda anigu reer Puntland baan ahay afka Puntland baan ku hadlayaa waxaan doonayaa nabadda Puntland waxaan doonayaa quruxda Puntland kala qoqobka iyo dhibaatada aad baan uga soo horjeednaa laakiin midabka koorka hal la joojiyo okay aad
waa qaar ka mid ah dadka ka soo hadlaya meelaha ka baxsan magaalada Boosaaso isla markaan imaan waayay kulankan maamooyinka badan ee hadlayay waxay xiranayeen indho shareer iyagoo markaa ka baqayay in dhibaato loo geysto ama ay dawladda caburiso caburin inta leeg baa ka jira magaalada Boosaaso waxaa jira dad kaleeto oo iyaguna la daaladhacaya inay baahiyahooda ay u sheegtaan madaxda Soomaaliyeed ama se dadka kaleeto dhamaantood waxay u waayeen jaanis ay ku hadlaan ama se ay ku sheegtaan baahiyahooda wax walba Booso ka jira ama gobolka Bari ka jirana qof walba uu ka warhayaa waa Axmed Bootaan magaalada Boosaaso